gudoomiyaha gobolka Cayn ee dowladda Puntland ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha ayaa waxa kaga hortagay duleedka magaalada Buuhoodle qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee ku sugan Buuhoodle iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah waxgaradka iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka ee Puntland oo ku sugnaa soo dhaweynta maanta loo sameeyay gudoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ka soo kacay magaalada Garowe caasimada Puntland أنا بكسر وين مجال أبوه ضرب دخل ميدان شغف يعبر بكفلية سود وهذا مجال دي هذا هو مقريضة يخشى هو مقريضة سود وهذا مجال دي هلا هذا الكلمة دي الربع بدين هالوين مارت يا أبو شق حوالي لين دورتي سود وهذا يسوقي عادي ما يكتب ماذا بوه يوقف كذا يهجريان وحنولنا يسود وهذا وايد يسوقيني إن بدن بعد يسوقيني وحي ترى أنا فادي بينو كاس تشدونا وأنا يدي دعائنا نحكي حبار ستين وصح حبارتين إن اللي هيدي سكرو كي ما يركي يوفتدي هجامين يي وحنولنا مركو هره براساك يا ما يركي يوفتدي هجامين سود هذا كلي يلعب كسود هذا كعفر كسود هذا سلام كدب قرنا بين شوقنا وضدكنا سلام دينا وين هيسا وحاليا مركز سود هذا وحاول مقليدين قبل كيمياء ضد كيمياء كسود هذا والد السوق كسود هذا إن وحلا قبل كوحلا قبضوا بحياة والدين يارين كيف يفكر كانوا أنو هالكن ديارين إن أنت بقى إنه قوة شغلنا لك كسود هذا تقدم مدى بوهولle شارع عبد الله محمد أيوم مهد عليه بلشة سودوين تقرح بدنا يوصل ما يصير. سلام وحنا قمنا علينا يا شرفت لا إنه سودويين مدة دار أي نسويين أي قرح لنا تهجنايين كنتينا ممشي شعورتا دد ماذا يبنتلان ماذا كجا عدن بوهولle runtiina waxa rajaynaya insha Allah inta in ka badan inay noo harsantahay inay wax ka badan inta ka badan inoo taalo inagana ay naga muuqan doonto insha Allah waxa aan idin wadnana kuma kala qaadanayno saxaafada inaan imika la wadaagno way ka dheer tahay fadhiyo badan bay wada yeelan doonaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka helnaa soo dhaweyntiina sharafta leh aad iyo aad waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntiina qiimaha iyo qaayaha badan waa idinka filaynay tan iyo mid ka badanba in sida nalooga soo dhaweynayo gobolka Cayn guud ahaan degmadiisa Buuhoodle waxaanu kaloo ka mahad celinaynaa bacadka aad muddada dheer noo taagnaydeen iyo safarka aad ugu sugayseen dheer ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Cayn ee dowladda Puntland waxaanu soo dhaweynaysan aanu soo dhaweynaysan ummadda Soomaalinimo marka koobaad taas ayaan uga mahad celinayaa marlabaadka qorshaha waxqabad ama waxa aanu idin sidno waxaan jecelahay golaynta ka ballaaran oo gola Buuhoodle oo gola Cayneeda inaan ka warano waxaana wax idinka sidnaa meelo badan oo dhinaca bulshada iyo dhinaca ciidamada iyo dhammaan arrimaha bulshada ka qusaysa arrimaha si gaar ah soo waraysan doonaa waqtigeeda waxaan rabaa kaliya halkan inaan ku soo koobo mahad celintaas waxaan kaloo doonayaa halkan fariin uga diro maamulkaas Soomaaliyeedka dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn khaasatan dhaqdhaqaaqa hadda ay ka wadaan gobolka Cayn aagiisa iyo waxyaalaha la sheegayo waxaan u maleynayaa Somaliland anuu ma jeceli in ay dhibaato dhacdo wiil dhalinyaro oo Soomaaliya si macnaha aan xaq ahayn ama macna darro inuu ku dhinto kama talinayo maadaama aan ahay shakhsi dhalinyaro laakiin waxaan leeyahay rag waaweyn oo odayaala oo arrinta iyagu ay horseedin haddii taas laga dayn waayana dariga kulka kale dariga waxa la karka kulka ka keenay waxaa weeye dee wax waajib ah ayaan ka qaadan doonaa deegaanka waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaan Puntland dadkiisa iyo dalkiisa iyo xuduudihiisa waajib baa naga saaran inaan difaacno horena difaaciisa waan uga soo qayb qaadanay haddana diyaar baanu u nahay cidna kuma xadgudbayno oo waxaysan lahayn mar raadinayno cidii laakiin isku dayda in ay samayso Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalson TV